محمدنا بل خير نساء المطلب لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمدنا بل خير نساء المطلب من منها غارت عائشة ما الغيرة إلا عن غلبي من منها غارت عائشة ما الغيرة إلا عن غلبي ذكراها ظلت ماثلة في ذهن رسول خير نبي لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمدنا بل خير نساء المطلب إذ نودي من روح أعلى في الغار ليقرأ عن كتبي إذ عاد تمور فرائصه لتزمله خوف العقب وتشاور شيخ قبيلتها في الأمر وتسأل عن سببي خديجة بيت من قصب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد كلمتنا نوحى أي نقول إن شاء الله بعض وصايا الرسول للنساء دردارنا دي نبي محمد وسيي دمركا دردارنا دا قاركود ما ودا دمين كرنا دردارنا دو مد سيين وقيب كميدا oo dumarka uu kula talinayo dardaaranadaasi waa xuquuq lagu leeyahay dumarka oo qaarkood la xidhiidhaan xagga naftooda qaarna ay la xidhiidhaan xagga raggooda qaarna ay la xidhiidhaan xagga ubadkooda iyo ummadday la nool yihiin waa wixii uu ku hagaagi lahaa adduunyo iyo aakhirada inanta ama oorida muslimadda ah ee ifka joogta wakhtigu maadaama uu kooban yahay kama wada hadli karno xuquuqda ragga iyo dumarka goobtan iyada ah ay isku leeyihiin maadaama goobtan xaawalay ay fadhido raggiina uu ka maqan yahay midhkiina in laga fuur yeelaabaa munaasiba ama waajibka laydinku leeyahay ragga marka lala joogana wixii xaq loogu leeyahay in lagala hadlo weeye sidaa daraaddeed ayaynu ka faa'iidaysan doonaa kelmaddeennan wixii xaq laydinku leeyahay waxaynu odhan karaynaa waa fursad laydiin saamaxay oo laydiin sahlay oo u soo ururteen inaad ka cabtaan xigmadda samaawiga iyo waxyiga waxay idinla gudbana kow ah haddii laydiin dadaalay oo culimo laydiin soo ururiyey oo aqoon diiniya laydiin keenay inaad qaadataan haddii la qaato waa aayo iyo faa'iido aada u qiimo badan haddii la qaadan waayana waxay noqonaysaa xujatun calayk wax lagugula xisaabtamo xilku fulay oo lagugula xisaabtami doono weeye marka u horeeya dardaaranadu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah saddex arrimood midna yaan la dibdhigin buu idhi alsalaatu idaa atat waaljanaasu idaa xadarat waalayimu idaa wajadat kuf'a xadiidkaasoo tirmidu warinayo culimmada qayb ka midiina derajadiisa ay xasan ku tilmaamaan salaadu hadday timaaddo rag iyo dumar midna inay la dibdhiga ma aha ee salaada wakhtigeeda in la tukado wey
haddii aad gurigaaga ku tukanayso iyo haddii masjidka lagu tukanayo labadaba. arrinta labaad uu nebigu dardaarmay waxa weeye calayhi salaatu wasalaam jinaasadu kolka ay timaado ama naftuba qofka kolka ay ka baxdo wax loo dibdhigaa ma jiro, laakiin waa in lagu dhaqsadaa qofkan sidii loo aasi lahaa, waayo ama shar ha u ahaata ama khayre xabaashiisunba xaasilo ah. midhka saddexaad uu nebigu dardaarmay waxa weeye ruuxa dumarka ah ee qaangaadhka ah ama carmal ha ahaato ama inan ha ahaato, marka ay hesho qof kufu ah oo gayaan u ah in loo guuriyo. waa dardaaranadu dumarka iyo raggaba u jeedinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam, ama aan nidhaahnee dadka hablaha mas-uulka ka ah. taasi wuxuu ku dhiirigelinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam si ruuxa dumarihi lamaanaheedii ay u hesho, si bulshaduna ay u asturnaan karto, si hadafkii loo gaadho adduunya iyo aakhiraba, ilaa qof waliba lamaanuu buhigsanayaae in guurka la dhiirigeliyo. walaalayaal, maanta arrinta guurku way yar tahay, caqabado badanna waa la hordhigaa, intooda badanna caqabadaha dumarka ka mas-uula, iyagoo ka fikiraya dhaldhalaalka adduunyada ayaa dhallinyaradii wiilal iyo gabdhaba wax badan oo kharash adduunyo ah oo aan waxba ka taraynin dhismaha qoyska ayaa lagu hor joogsadaa. wuu diidan yahay taa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaa waxa uu ina farayaa inan iyo gabadh mid kastaba ha ahaato in loo guuriyo oo guurka lagu dhiirigeliyo. mushkiladda guurku ama guur la-aantu way ku badan tahay dadka dabadda iyo dadka gudaha labadaba, laakiin faanka ay soomaalidu isu faanayso ama ha isugu faanaan adduunyada ay soo urursanayaan iyo alaabta, ama ha isugu faanaan xagga qolada, faankaasibaa wuxuu ka hor joogsadaa habluhu rag kufu ah oo ay guursan lahaayeen. marka taa wuu ka soo horjeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dumarow, taa dhinaciina inaad ka dhiirigelisaan aad bay waajib u tahay. siradaynu kaga baxsanaynaa, inan xumaataynu kaga baxsanaynaa, dad mujtamac kala durugsan oo kala fakadaynu kaga baxsanaynaa. waxaa kaloo rasuulku sii raacinaya sala allahu calayhi wasalam, marka qofkan loo guurinayo in loo guuriyo uun qof diin iyo akhlaaq leh. haddii diin iyo akhlaaq loo eego, duunyo la waayi maayo, dad la socodna la waayi maayo, inanta daryeelkeediina la waayi maayo. haddii se loo eego sida wakhtigan dambe badan weeyaane, baasaboor muxuu sitaa ninkan ka soo dhaadhacay debadda, ama waddankeebuu ka yimi, ama lacag muxuu sitaa iyo adduunyo intuu leeyahay. haddii arrimaha loo eego meel dheer sii gaadhi mayso. wuxuu rasuulku leeyahy idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh wailaa takun fi lardi fitnatun wa fasaadun cariid, calaa macnaa xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. ummaddeenna islaamka abuu la hadlayaa ee hooyooyinkiinu ka kow tihiin, marka uu idiin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raali tihiin, u guuriya hablaha. haddaad taa yeeli weydaanna waxaa dhici doona fitno iyo fasaad, waxaan la mahadinin weeye. waa innaga aragnay oo dhibaataa ku timaada hablaha, hooyada iyo aabba midna aanu ku farxin. marka taa in aad iyo aada loogu fikiro weeye, iyada oo loo meeldayayo dadka saalixiinta ah ee diin iyo akhlaaq ku wanaagsanna loo guurinayo. marka taasi waa dardaaranka koowaad ee rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ummaddan islaamka uga tegay ee kow ka tihiin haddaad tihiin xaawalayda. haanina gunbay ka tolantaabaa laydhaa. arrimahan guurka iyo qoyska iyo hablaha marka laga hadlayo, aabbuhu kaalin weyn kuma laha, waa meherinta uun, laakiin kaalinta tabaabushaha iyo talada iyo aqbalka intaba waxa ku leh hooyada. taa ina aada uga fiirsataan oo dhaqankeenii hore ee iskaga salaysnaa jaahiliyada iyo dhaldhalaalka adduunyada kaa inaa ka tanaasushaan waa midhuu nebigu inoo dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam.
dardaaranada waxa kamida nabigu dumarka u dardaarmay at-tarhiib min an tatazawwaja al-mar'atu bighayri idni waliyaha waxaan banaanayn gabadhu inay guursato ehelkeeda idankooda la'aanti cidii xaq u lahayd inay gabadhan guuriso ama ay meheriso iyadoo iska weydaaranaysa intay nin jeclaatay taana wuu ka digay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam markaasaa waxa uu leeyahay ayuma nakahat bighayri idni waliyaha fanikaahuha baatil xadiidkaasoo darajadiisa xasan lagu tilmaamay gabadha guursata iyada oo aan la tashanin ama aan idan ka qaadanin ninkii ehelkeeda ahaa waa aabbo awow walaal adeer ciddii kolba guurin lahayd u soo horeysay weliga kaasaa la yidhaahdaa hadday iska guursato guurkeedu waa baatil buuri rasuulku sallallahu alayhi wasallam taana hablaha yaryar u sheega oo daayartu marka aynan dhalinyaro jeclaadaan debad iyo gudaba waa laga yaabaa dadka debaduna inay qaarkood internetkii wax inaga dhageystaan waxa ay xiiseeyaan ninka ay jeclaatay si aan loogu diidin inay iska daba gasho laakiin islaamku waxa uu waajib ka dhigay marka gabadha la guursanayo inuu guuriyo ehelkeedu iyadoo arrin baa la weydiinayaa ninkan ma jeceshay haa meher maxaa lagaaga dhigaa waxa iyo waxa guurkiisana waa inay raali ka tahay meherka wixii ay qabsanaysana waa inay sheegato laakiin in aqadkii la sameeyo oo la meheriyo cidda uu ka ansixi karayo ee fulin karaysa waxa weeyaan waa ehelkeeda waxa kaloo dhacdo oo dadku ay hadal hayaan oo ay yiraahdaan carmashu iyada iskuurisa baynu ka maqalnaa waliba dumarka qaarkood carmashu wali uma baahna oo iyada iskuurisa wax jira ma aha taas qadiyada wilaayada iyo mas'uulka inantu inuu guuriyo carmashuna way u baahan tahay inanta da'da yarina way u baahan tahay marka taayaan lagu lugoyn gabadhu markay nin guursanayso ama debad ha joogto ama gudo waxa waajib ah oo guurkeeduna uu ku ansixi karayaa inay ehelkeeda soo marto inantan ehel baa lagu ogaa iyagaa soo koriyo jeclaayo u hanweynaa meesha dibudajin loogu samaynayo iyo dadka lagu wareejinayo waa inay ehelkeedu ogaadaan marka la guursanayana waa in la ogaado marka la furayana waa in la ogaado waayo arrinku waa arrin qoys baa la dhisayaa wax sahlan maaha marka taana dumarka u sheega dad badan baa marka dambe waxayna weydiiyaan waanu ismehersanay ninka iyadoon waalidkaygu ogayna wax ma ka jiraan arrintaa waxay soo qaadaan dumarku waqtiga ay ninkii ay ismehersadeen isa seegaan waqtigaasun bay soo qaadaan laakiin bilowga laga maarmaana waxyaabaha dardaaranada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu dumara widisiyo waxa kamid ah wasiyatu an-nisaa bi huquuqi azwaajihin ragooda inay u samafalaan ragii waa inaga maqan yahay samafalka iyagana waa lagu leeyahay ragga laakiin idinka maanta jooga qaybtiinaynu soo qaadan ilaahay baa wuxuu yiri inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda iyo samafalka qaraabada in wax la siiyo xumaantii iyo foolxumada ayuu idin diidayaa iyo macsiyada marka cid loo samafalo oo loo cadaalad sameeyo waxa kow ka ah saygan kula nool ee nolosha wada qaadanaysa ee aabaha u ubadkaaga ee aad ku faanayso isaguna kugu faanaya ubadkaagana sharafta iyo karaamada abtirsiimadiisa ay ka heleen adiga iyaguba kaasaa kow ka ah muu yaraysanin arrinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin hablaha iyo hooyooyinka muslimaadka ah mar walba muxaadaro kula kulma nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinta aad iyo aad buu ugu adkeynay waayo waa halka aayaha ooridu uu ku xidhan yahay aayaheedii baa ka xumaaday haddii saygii ka xumaado ama isla silanaadaan hadduu hagaagana adduuniya aakhira waa u hagaagay ruux dumara u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah xadiidkaasi
nasaa'i xaakim baa warinayaan saxiix baa lagu tilmaamay waxa uu leeyahay isagoo nabigu gabadhii la hadlay adaati zawjin anti miyaad say leedahay ama nin xaas miyaad leedahay qaalat nacam hawaan leeyahay bayt markaa nabigu waxa uu yidhi kayfa anti lah oo sideebaad u tahay halkee kala joogtaan ma isku wanaagsantihiin mase ma u samafalaysa qaalat maa aaluuh ilaa maa cajaztu can waxaan ka hakranayaa ma jirta bayt dee itaalkayga waan u samafalaa wuu soo ururiyey nebigu wax fara badanoo kale umuu sheegina maqaalad kooban buu sheego waxau idhi fandurii ayna anti minhu fa innamaa huwa jannatuki aw naaruki bal hadda ka fiirsa halkaad ninkaa ka taagan tahay iyo miisaanka adag sida ay isku tihiin iyo si aad ugu samafashay iyo ina xaqiisa siisiya in kale ka fiirso ama waa jannadaada ama waa naartaada haddaad u samafashana jannuu kuu yahay haddii oo jannaad ku mutaysanaysaa haddii aad ku xun tahayna waad ku naar mutaysanaysaa mar kale xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan abi hurayra uu warinayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi laa tasumi almar'atu idaa kaana zawjuha shaahidan ilaa biidnih cibaadooyinkii sunnaha ahaa ee ilaahay loo gudanayay ayuu nebi maxamed tilmaamayaa xaqii ninku inuu ka horaynayo markaa wuxuu yidhi gabadhu marka ay doonayso soom sunno ah ninkeeduna uu joogo oo aanu maqnayn iyay soomin iyadoo ka fasax qaadata mooyaane hadday salaad tukanayso sunno ah iyo hadday soom sunno ah soomayso iyo haddii ay xaj sunno ah la imanayso iyo hadday sadaqa sunno ah bixinayso waa inay kala tashato intaba waayo tashigiisa iyo ogolaanshihiisuna waa waajib cibaadadan sunnaha ay la imanaysaana waa sunne sunnahaasiiba waxa ka horeynaya waajibkaa ka horeynaya marka waajibka iyo sunnaha waajibka horeynaya sidaasuu ku tarbiyadaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa aydan yuraqib fii xusni alcishra wuxuu dumarkii jeclaysiinayaa inay ninkooda si wanaagsan ula noolaadaan si ay uga nastaan qalbiga si ay uga nastaan maskaxda si noloshooda ay ugu qurux badnaato xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan oo ibnu cumar uu warinayo ayaa wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarku la hadlaya markaa waxau leeyahay dumarkiiyow sadaqaysta oo sadaqa bixiya fa innii ra'aytukunna akthara ahli nnaar calaa macna alxadiid sadaqa bixiya sadaqadu waxay ka noqotaa gaashaan bay naarta ka tahay oo ilaahay baa naarta gaashaan uga dhigayo waa lagaaga xijaabaya sadaqada sababta ula imanaysaan waxa weeye waxaan idin arkay idinka oo ku badan naarta haddii ruux dumari ay weydiisay tidhi maxay ku dhacday taasi waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tukfirna allacna wa takfurna alcashiir nacdashana waa badistaan iyo cayda maraa idinku iscaydaan maraa isdhalliishaan maraa carruurta caydaan oo nacdashaasaa badisaan saygana waa ka gaalowdaan macnaa eraygii loo isticmaali lahaa marka ilaahay laga gaaloobo ayuu nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo idiin samafalayabaa marka ay saseegtaan ayuunbaad tidhaahdaan wax khayra weligay kaamaan aragoo waxaad dafirtaan wixii samafalo idiin sameeyey ninku dardaaranada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah wasiyatuhu bixifdi lbuyuut wuxuu nebigu u dardaarmay dumarku inay ilaaliyaan guryaha inay ilaaliyaan ammaanada ay hayaan waana ta ilaahay uu ku ammaanay fii suurati nisaa dumarka faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghayb bimaa xafida allah dumarka waa wanaagsan ilaahay wuxuu ku ammaanay laba arrimood aqbalkeen iyo ilaalin markuu ninkoodu amar wanaagsan u soo jeediyuu amro ama diin ha ahaato ama dadnimo ha ahaato guriga ubadka amar kolkuu keeno ila isagaa meesha ka aamirkii ah oo go-aankii lehe way aqbalaan iyagoo arrinkii ilaahayna aqbalay ta ilaahay baa u horaysa amarka ninkaa ku xiga intaa kadibna waxa ilaahay uu ku ammaanay xaafidaat waa kuwa ilaaliya maxay ilaaliyaan gurigooda ilaalinayaan naftooda ilaalinayaan waxay ilaalinayaan ubadkooda adduunka intaasoo dhanba way ilaaliyaan waxyaabuhu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digay waxaa ka mid ah cadamu idkhaalihinna almaxaarima calayhin ragga
ajaanibta ah inaanay guriga ku soo dhaxdaynin iyadoo cawradoodu ay bannaan tahay ceeb baa ka dhalanaysa ama iyadoo ninku aanu ogolayn soo galidiisa maalin maalmaha ka mid ah baa nebigu wuxuu yidhi iyaakum waddukhuula cala annisaa waa ragoo waxaan idiin diidanahay xadiidku bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay dumarka u gelidooda iska ilaaliya oo marka ay ku raaxaysanayaan guryahooda waa inuu guriga u noqdaa zay alxaram alaamin xaram aamin oo kale oo qofkii aanu warwaraynin oonu walaacaynin oo qofkii aanu hareerihiisa eegaynin waa inuu qofkii rar dhigan karaayo uu nafisi karaa haddaba ha ugu gelina haddaa ragga tihiin dumarka guryahooda gurigaa ay ku asturan yihiin u daaya markaa ninbaa wuxuu yidhi bal ka waranka xamka la idhaahdo ama sayga ragga ay isxigaan ee ninka aqaaribtiisa walaaladii iyo ilmaadeeradii iyo kuwaa bal ka waran markaa nebigu waxau yidhi alxamu huwa almowt kaasi waaba geeri oo dadku had iyo jeer kama fikiraan arrintiisa waxaa laga yaabaa in layska fudaydsado marka taasoo kalena nebigu ka digayaa waa meelaha akhlaaq xumadu ay ka timaado waa meelaha aafaadka iyo asturna-aanta mujtamaca iyo dhibkuu ka yimaado wey dardaaranadu nebigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a dumarka kula hadlay hadday wax bixinayaan ay guriga wax ka bixinayaan waxbixintaasi waa inay noqotaa min hayri sarfin midaan xadgudub ku jirin ee loo eegayo maslaxadda qoyska marka u horeeya dabeetana maslaxadda ummadda waa inay iskala raali yihiin ninka iyo gabadhu wixii la bixinayo ama raashinka ha laga bixiyo ama biilka ha laga bixiyo ama alaabta guriga ha laga bixiyo waa laba qof oo wada nololna wada qaadanaya wixii markaa xurguf iyo xumaan ku keenaya dhexdooda in marka horeba la hor joogsado wey nebigu wuxuu dhiiriyey arrintaasuu ka warrama wuxuu yidhi gabadhu iyo idan la-aan waxba ku bixin dabeetana waa la weydiiyey wuxuu yidhi wala tacaama yaa rasuul allah bal raashinkana ka warran raashinka la bixinaya guriga wuxuu markaa yidhi daaka afdalu amwaalina dee raashinkaaba xoolaha iyaga u fadli badan kharashka iyaga iyo biilku wuxuu ka baxaaba haddaan ummadda islaamka nahay dee raashin buuba ku baxaya marka kaa laftiisana wax la isla ogol yahay waa inuu noqdaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu dhiiriyey inay gabadhu wax bixiso iyadoo uu ugu bushaareeyey ninkuna ajriga inuu badh leeyahay iyaduna ajriga badh ay leedahay laakiin midhka mar walba kasii wanaagsani waxa weeye wadatashiga intii ha dhowto labada qof wax dhaawac ku keena xidhiidhkooda uu iman lahaa wadatashiga iyo iswargelinta waxyaabaha dardaanadana rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarka uu siiye waxaa ka mid a allaa yadacna thiyaab ilaa fi lbuyuut inaanay dharkooda dhigin oo jidhkooda aanay qaawinin iyo cawradooda ilaa qolkeeda hurdada marka ay joogto mooyaane waxau nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min imra'atin tadacu hiyaabaha fii gayri baytiha ilaa hatakat isitra baynaha wa bayna rabbiha xadiidkaasoo darajadiisa xasan lagu tilmaamay ruuxa dumarka ahi gurigeeda meel aan ahayn hadday marada dhigato oo ay isku qaawiso waxa ay iska qaaday daahii u dhaxeeyey iyada iyo ilaaheeda macnaha insaan bani aadam hortii un inay isku qaawisayay moodin laakiin ilaahay bay isku hor qaawisee taa ha iska ilaaliso marka taasina arrin sahlan ma aha dumarka qaarkood baa marka laga yaabo inay meelaha u baxaan iyadoo dad ajaanib ay arkayaan ama dumar ajaanibiha ay arkayaan ayaa maradooda ay dhigaan ha u fahmin maro dhigiddeed marka laga warramayo jidhkao dhan oo la wada qaawiyo haddaad cawradii badh qaawiso maradii oo dee aad dhigtunbay la mid tahay madaxiibay gabadhii qaawisay cagiibay qaawisay gacmiibay qaawisay deyntiiba waa cawro idan markaa asturnaantu waa qurux qaawanaantuna waa foolxumo xishoodku wuu wanaagsan yahay wuxuuse kusii wanaagsan yahay dumarka ayuu kusii fiican yahay wakhtiyadan dambena dadka aan diinta lahayna gaaladu waxay ilbaxnimo u arkaan oo ay fariidnimo u arkaan in dumarka loo faydfaydo tadhakadeeda qaawisaaba xariifadoo mutacalimadoo ilbaxada bay ku leeyihiin ta surwaalka isku taagta ta dharka isku geejisa ta laakiin jidhkeeda asturtaa waxaa la odhanayaa casri hore iyo qarni horey nooshahay marka waa shaydaanka hadallada ka soo imanayay ka mid tahay taas idan markaa gabadha muslimadda ahi jidhkeeda way asturaysaa waana ilaalinaysaa xijaabka ma dhigayso inta ay ka maqan tahay gurigeeda da'yarta waa in sidaa lagu carbiyo
dadka dabaduna hablahooda ay u sheegaan xijaabkuna uu yahay xijaab sharci ah ilaahay baa ku adoonsaday dardaaranada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamida inay gabadhu ku faanto inay sharaf u tahayna ay u aragto ajrina ka baadi doonto shaqaynta ay ka shaqaynayso gurigeeda ama ay u shaqaynayso ubadkeeda iyo odaygeeda ama ehelkeedaba ay guriga uga shaqaynayso waa ajri weyn baa ugu jira waa cidamu ajri almar'ati ala khidmatiha fi bayti zawjiha guriga ninkeeda marka ay ka shaqaynayso waa halka ay cisiga iyo sharafta iyo ajriga iyo abaalmarinta ka helayso taa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyeeyay hablihiisii iyo hooyooyinkii muslimaadka ahaa waxa u soo cabatay maalin maalmaha ka mid ah inantii uu jeclaa ee Faatimatu Zahra taasoo caruurtiisaba kaga soo hadhay ayaa u soo cabatay intii ilaa way dhinteen kuwii kale Faadimu baa ka dambeysay iyaduna 6 bilood rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin 6dii caruur ahaa ee kale way ka sii geeri horeeyeen nabi maxamed Faadima waxay ka cabanaysaa shaqada guriga aaba farihi baa baxay dhibaato badan baa iga soo gaadhay aduguna adoomaad qaybisaa iyo shaqaale oo meelaha laga helay daaba maxaad shaqaale ii siin weyday nabigu digri buu la qiimay calayhi salaatu wasalaam aaba gurigaaga ka shaqeeyo hawlahaaga iska qabso odaygaaga u shaqee waxaanaad akhridaa tasbiix iyo takbiir iyo tahmiid subhanallah 3 jeer walhamdulillah 3 jeer wallahu akbar 3 jeer digrigaa wad buuri digrigaasa tacabka qofka ka qaada oo qofku markuu kitchenka ku jiro haduu halkan quraan siraato isaguna wuxuu akhriyaa oo digri noqdo guriga markuu masaxay u shaqeynayo oo digri wado tacabka ka yaraanayo haduu hees iyo jaas siraatana qalbigaasi madoobaanayo uu si naashifaya sidaas uu ku daweeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam inantii muu u dirin wax shaqaale ah kadalik sidoo kale asma bint abi bakr dumaashidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Aisha ay walaalahaayeen ayaa iyaduna waxa ay ka cabatay dhibaatada ka soo gaaraysay guriga iyo shaqada ay u shaqeynaysa gaadiidka oo fardihii lagu duulay ninkeedu dagaal ku tigay iyo awrkii beerta lagu qodayay intaba dhibba ka soo gaarayay u shaqeynaysa calafka ninka markay diyaarisa gaadiidka calafkiisa diyaarinaysa iyadoo nabi maxamed oo arkay madaxa ku soo qaadaysa lafa timireed si ay ugu ridiqdo gaadiidka oo uu intifaacsado marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku hambalyeynay in ajri leeyihiin waa u sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay iyadoo asmaa socota oo dhakada ku sida gaadiidka alaabta markaas dabeedna gaadiidka uu joojiyay si uu la soo raacdo iska socobay lahayd aniga sii wadaya mar dambe Abu Bakar oo cabat wuxuu ii soo raadiyay tiri qof shaqaala ayuu ii soo helay فكأنما اعتقني واحد مودaysa inuu xoreeyay dhibaatada ay haysatay marka taasina waa mid jira oo ay tahay in ku sabirtaan ilaahayna ugu dhawaataan amaan iyo sharafna way idin tahay ajrina waa ka helaysaan nabigu calayhi salaatu wasalaam dardaaranada uu dumarka siiyay waxa kamid ah gabadhu inay ku adeecdo saygeeda wixii aan ahayn macsiyo iyo dambi wixii aan ahayn wixii macsiyo ah ee dambiga ilaahay lagu caasiyay laga ma yeelayo ninka laakiin wixii samafal ah ee danta reerka iyo diintaba u dana waa inay ku adeecdo oo aqbalkeen noqoto markaas wuxuu ka warramayaa dumarka ta wanaagsan alladii tasurruhu idha nadara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi dumar waxa ugu wanaagsan ninkeeda ka farxinaysa isagaba saasoo kale baa laga doonaya markuu amrana adeecaysa wixii wax xuma aan ku keenaynin nafteeda iyo maalkiisa dardaaranada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dumarka u jeediya waxa kamida الترهيب من أن تسأل المرأة زوجها طلاقا بغير سبب wuxuu aad uga digay nabi maxamed gabadhu inay ninkeeda dalqada weydiisato sabab la'aan sabab sharci ah haday jirtaha hadii sabab sharci aanay jirin uu ka digay rasuulku waxa uu nabigu leeyahay ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghayri ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna gabadha sabab la'aan ninkeeda weydiisanaysa inuu furo waxa ka xaraama jannada urteeda ma bahelayso macnaheedu ma galayso way
haddiis inay sababtani sharci tahay iyo in kalena yaa qiyaasaya culimada weydiinaysa culimada waxay weydiinaysaa sababtani tii ay dalqad ku weydiisan lahayd ninka ma tahay ila iyadu isqancin mayso sababtan inay sharci tahay inaanay sharcayn ma miisaami karto oo aqoontii shareecadii aqoon uma leh marka waa inay culimada kala tashatay tiraado sababtaasi ma ii banayn kartaa inaan ninkii dalqad weydiisto waxaasuu sameeyey oo waxaasuu sameeyey oo waxaasuu sameeyey intaasoo dhan uu sameeyey ma ii fasixi karaysaa dalqad inaan weydiisto hadduu caalimkii fatwada bixinaya yidhaahda haa marka ama qaadigii yidhaahdo markaa way ku tallaabsan kartaa laakiin ta la diidayaa waxa weeye qoyskii qaaliga ahaa aynu ahan weynayn ee bulshadeenna ka mid ahaa ee ummaddu ay ku soo hiranaysay ee hareeraha laga taagnaa in cadho yar lagu burburiyo oo iyaduna markay cadhooto ay kalarhka ku dhegto oy tidhaahdo halkaa waraaqdii dhig iyadoon wax balaayo ahi jirin ama isagiina marka uu cadhoodo inuu dalqadii ku karbaasho oo uwaanku furi ugu hanjabo labaduba waa wax mamnuuca oo qoyska iyo mujtamaca midnaba aan qabaninba waxa kale uu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam oo tan la socota inay gabadhu ku dhiirigeliso ninka furiinka oo wax furiinkii ku abaabulo ay samayso oo iyadoo lacag la ay tidhaahdo hebelow haddii aad dalqadda isiiso adduun intaa la eg baan ku siin doonaa macnaha waxaa loo yaqaanaa xagga shareecadda khulci baa loo yaqaanaa khulci ka dhex siibasho gabadhi ay ka dhex siibato xidhiidhkii ninka markaasuu taana ka digay nebigu waxa uu leeyahay almukhtalicaatu walmuntazicaatu hunna almunaafiqaat xadiidku waa saxiix sida silsiladda albaaniba uu ku tasxiixinaya sheekhu dumarka raggooda dalqadda ka iibsanaya ee ninkii oo adduunyo jecel adduunyahun guriga kaga soo ridaysa si ay warqadda uga qaadato waa munaafiqaad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kol haddii aanay jirin wax sababahay waxyaabaha uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam dardaaranadaas waxaa ka mid ah inay gabadhii ninkii isu egaysiiso kuma badna gudaha laakiin dadka dabadda way ku badan tahay oo markii uu yimi ciirciirka iyo daciifnimada ku dhaqankii diintu waxay iska dhacday ragguna inuu isu egaysiiyo dumarka oo weesaakhiya uu qaatay iyo silis codkiisana cod yaroo niiqniiqa uu ka dhigo gabadhiina ay isu egaysiiso ninka ay isu egaysiiso intay shaar iyo surwaal gashato timahana ay gaabiso codkana ay weynaysay nin iska dhigta markaa arrintaasi arrin dhacdo weeye oo dadka dabadaha lagu arkayo weliba qaar soomaaliya baad ku arkaysaa arrintaasina wuu ka digay rasuulka ilaahay oo waa dardaaranaduu siiyey dumarka calayhi salaatu wasalaam lacana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam almutarajilaati min annisaa walmukhanithiina min alrijaal وقال أخرجوهم من بيوتكم وحديث كي بخاري وحو نبيقو نعدل دوشا وقطوري دمر كرقة إسوء جيسية انت اينو شاقني قول إيا فعل انت بيسوء جيسينيس إيا رقة مخنثين تلايرا مخنث كوحوين انك دمر كيسوء جيسية كوانا ونعدل وحو قريه نكاريا يا أوبت كايدين كايبتلينين أخلاق حمد يا أمد قارسينينا مستافرية أما وإن لما مستافرية أما الحلو waayo nabiga nacdalay calayhi salaatu wasalaam wax sahlanna maaha waayo qofkani waxa uu saloogay siduu ilaahay u abuuray waxa uu leeyahay ilaahay waxaan ku wanaagsanaa sidan baan ku wanaagsanaaye gabadha waxay leedahay markaad gabadhiga dhigtay waad khalada inaad nin iga dhigtaabahay ninkiina ilaahay buu ictiraadaya oo ka hor imanaya wuxuu leeyahay inaad gabadhiga iga dhigtaabahay arrintaasina waa arrin aad u foolxun weeye waxyaabaha uu ka digay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama sharciguba ka digaya waxa ka mid ah inay gabadhu u qasado inay ilmaha iska soo rido inay ilmihii ilaahay caloosheeda uu ku abuuray ay iska soo rido sababtu wax kastaba ha ahaato kol hadduu ilmo u calool galo inay iska soo ridaa waa mamnuuc taasina way dhacdaa marar badan dadka qaarkood oo iimaankoodu daciif yahay way ku dhacdaa wayda almaw'uudatu su'ilat biayi dhanbin qutilat waa wax la isweydiin doono qiyaamaha naftan maxaa lagu dilay haddii tallaabooyin noocaasa la qaadayo waa arrin si miisaaman loo galay oo culimada laga tashaday oo dhakhaatiirta lagala tashaday oo la isu eegay dhibka ilmaha iyo dhibka hooyada waxaasoo dhan oo la isu miisaamo mooyaane arrin gabadhu si ciyaar ay ugu tallaabsan karto waa arrin qalada weeye xataa tii qaaday xamli iyo uur sine ah markii hore sinay ku dhacdo dembi ah dembiga ka sii weyni waxa weeye naf bani aadama inay goysay oo ubadkeeda ah oo ay dhashay ama ha tuurto ama calooshaba ha ka soo rido
arrimaha noocaasana waxa keena cifa la'aanta iyo dhowrsoonaan la'aanta iyo qaawanaanta iyo rag iyo dumarka isdhex qaadaya iyo anshax la'aanta iyo islaamkoo dadka ka daciifa waxyaabahaasaa keena marka taasina in aad iyo aad dumarku ay uga feejignaadaan ama ha yaraado ama ha weynaado oo aan lagu dhiiranin weeye ilaa dhib jiro oo dee culimada lagala tashada mooyaane waxyaabuhu nabigu dardaarmaya waxa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam الترهيب عن محقرات الذنوب إن إذا ذنوب تيريسن رجي دمر بو أرنو تالا دمركو وإن أنا ذنوب تيريسن هتاي حنتاي هتاي بينتاي هتاي ورلا قادتاي هتاي اسكوديرتاي هتاي فالتاي فالا ده واحد سهلا ما وان فيلا ين ليدين كور هي مشكلة ده هتمر كهيسته وحكم ده فالا ده أما نلا فالين يا أما قبل الرماها سيئات بيودي بدينهن وكبائر تكوشران ما ها صغائر ذنوب تيرن ماها waxay la mid yihiin sinada iyo dilka iyo waxaasay ku dhaweeyeen la leesihiin iyo sixirka iyo khamriga kuwaasay la baabihiin Aisha radiyallahu anha ama xaasaskii nabiga mid kamid ah nabiga ag fadhida waxay leedahay xasbuk min safiya annaha kada safiya waxa kaaga filan dhaliisheeda waxa kaaga filan waa caynka macnaheedu way gaaban tahay un bay tiri waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kelmad bad ku dhawaaqday hadii lagu dhaxridi lahaa badweynta way casayn lahayd dhiigahan hal mar baad cantuugtay qofka oo hadii badal lagu ridi lahaa dhiig bay casayn lahayd idan marka waxyaabaha dunuubta qof walba waxaad isku daydaa inaad dhinacaaga u eexato cid kale ha u eexanin qabriga marka lagu dhigo qiyaamaha lagu soo joojiyo ilaahay aad is hortaagto wixii aad ku jawaabi lahayd diyaarso wax fadeexad kugu noqda wax kugu waran aad ridaynayso kugu soo noqda iska ilaali walaalayaal carabkeena aynu ilaashana taa mowduuc kale aha aad baa looga waramay dunuubta aynu yaraysanna nabigu dumarka wuu uga digayaa Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha gabadh baa waxay ku gashay naarta bisad ay xidhay may sii daynin si ay dhulka wax uga soo cunto waxna may siinin show way wareerisay oo inta xidhay ayay sidii ku dhimatay naartay ku gashay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa dib loo geystay xayawaanka inaguna laga yaabo inaynu fudaysano maxaad u malaynaysaa qof bani aadama dhibka aad soo gaarsiiso dardaaranadu nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka siiya waxa kamid ah annahyu cala ad-du'a cala an-nafs wal awlad inaan ubadkana la habaarin ehelkana aan la habaarin aduguna aanad is habaarin habaarku shaqadeena ma aha waa qof daciif oo liita shaqadiisa inagu duco ayaa dhaqankeenu yahay inaynu isu ducayno inaynu hadal wanaagsan isdilaahno inaynu isa soo dhaweynayno marxabaysiino dhaqanka muslimiintu waa nooca weey saxaabiyada Salama la yiraahdo xaasaskii nabiga kamidii waxa ay leedahay waa xadiidka muslim ku sugan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaa'ikata yu'minuna ala ma taqulun naftina habarina oo ubadkiina habarina oo ehelka habarina haddaa habaarad la timaadaan malaa'igtuna aamiin bay odhan doonta dabeetana markaasaa la idin aqbali habaarkii marka habaar ka dhacay u baa kugu dhacaya waa waran aad ridayso adiga kugu dhacay ka daayay uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam haddaad caruurta karaahaysato u ducee haddaad odayga karaahaysato u ducee haddaad adigu iskaraahaysato yaradii qadooto ilaahay bari inuu ilaahay waxaan kaa dulqaado wuxuu nabigu ugu bushaaraynaya calayhi salaatu wasalaam dumarka muslimaadka ah bushaarooyin badan buu siiya waxa ka mid ah gabadhu dheeraad waxay leedahay oo ninka ay dheer tahay inay uurkii ku qaadayso ilmihii taasoo quraankuna si gaar ah ugu hambaliyay markay gabadhu dhimato iyadoo uur leh ayaa bushaar uu siiyay nabigu waxa uu leeyahay dadka shuhaadada ah waa 7 qofka jihaadka lagu dilo qofka caloosha u dhinta qofka daacuunku u dilo qofka biyaha ku hafta qofka ay meel ku dinto iyo qofka TB-da u dhinta ka dabka ku dhinta ee meel ku gubato wal mar'atu tamutu bi jam'in shahida gabadhu marka ay ku dhimato uurka iyadoo uur la ay isku dhimato iyaduna waa shahiidatu bulay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi waxa uu ku sugan yahay abi daawud buu ku sugan yahay isaguna waa xasan taasina waa mid jira weey waxyaabaha uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waalidka iyo waliba dumarka u dardaarmaya waxa kamid ah al-adlu bayna al-awlad mawduuca ubadka waa laga warramay baan filaya laakiin in loo cadaalad sameeyo ubadka
oo cadaaladda iyo caafimaadka iyo ilmaha adaabta wanaagsan intaba hooyadu ka qaadanaya fattaqu allah wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada ubadka u cadaalad sameeya wiilashiyo gabdhaha loo cadaalad sameynaya qolo walba gaarkooda lagu cadaaladii adigu aroorta ka doonaysa in aabba iyo hooyo ilmuhu u cadaalad sameeya adiguna waa inaad u cadaalad samayso taasina waa mid aad iyo aad u qiimo badan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarka u dardaarmayo waxyaabuhu nabigu dumarka ku abaabuli jiray waxaa ka mid ah alxathu fi talab alcilm waatafaquhi fi ddiin dadku waa dad muslimiina diin bay leeyihiin islaamkooda waa ka ay ku abtirsanayaan idan markaa in aqoonta sharciga ay wax ka bartaan diintoodana ay faa'iidaystaan waxaan odhan karaa runtii taa way ku ammaanayiin dumarku kuwooda waaweyn iyo kuwa yaryariba intaan arkay dabadiiyo gudaba meesha wax lagu baranayo dumarkuunbaa u badan muxaadaraadka iyagaa u badan meelaha la isugu imanayo duruusta lagu baranayo iyagaa u badan madaariska iyagaa u badan raggu qaybina way qaylaysaa qaybina siyaasad bay ku howlan yihiin iyo mafrish iyo huhaa waxaan waxba uga faa'iido ahayn goodhowna marka wax yari ku yimaadaan ee su-aasha la isweydiiyo waxa laga yaabaa inay iyadu ka jawaabto markay guriga isugu yimaadaan oo isagu ka jawaabi kari waayo waa ayaan darro haysata ragga weyn marka taasina in diintiina wax ka barataan haddaad diintiina wax ka barataan ubadkiina anfici karaysa waxaa jirta waddanka la ydhaa muritaaniya dadka dhallinyarada ka yimaada jaamacadaha ka yimaada way ka duwan yihiin dadka kale caalamulislaami markay tagaan dhallinyaradoodu way ka xifdi badan yihiin oo ay ka aqoon badan yihiin dhallinyarada caalamka kale ka yimaada sababta markii la eegay waxa weeye hooyooyinkood ayaa soo bara tafsiirka qur-aanka iyo cilmiga xadiidka waxa laga yaabaa hooyadii iyo ayeydii inay bukhaari iyo muslim kaba xafidsan yihiin marka dee ilmo hooyadii guriga wax ugu soo dhigaysaa wuu ka dheeraynayaa kuwa kale marka adalabu fi lcilmi sharci cilmigii inay gabadhi barato oo diinta ilaahay ay fahamto ama cajaladaha ka fahamto ama qalabkan la isku baahiye ama iyagu dhexdooda waxay isu dhigaan hablaha had iyo jeer wax yaqaana ee aqoonta leh ee idinka mida waa in la suuq geliyo waynaydaan ka sugin inan daayar iyo wadaad wax idin dhigo kaliya hablo badan oo waxa jira si fiican wax u fahamsan marka intoo dumarkiinu koox ku urursataan guryaha ama fasallada iyo madaariska hablahaasi waa in la soo saaro waa in aqoontooda la kobciyo waa in tamarta maskaxdooda laga faa'iideeyo iyagana dhiirigelin bay u noqonaysaa oo cilmigii sharciga ahaa bay baran karayaan cadalaadkoodii iyo muruqyadoodii maskaxda meel ay ku baahiyaanna way heli karayaan cilmigiina waa ku tartamaysa oo inantii markay arkaysa inantaa mucallimada ee fatwada bixinaysa ama gaadhay mustawa sare dee kuwii kale hablaheena kalena way higsanayaan marka laakiin kuwa aamusiisaan waxba ka faa'iidaysan weydaan aqoontoodii ee rag un doontaan inay wax idin sheegaan waxa dhici doona marka hableena inay waxba baran waayaan marka attafaquhu fi diin in cilmigii la barta diintiina la fahmo waa laba arrimood oo si kala dheeraad ah dalabul cilmi wattafaquhu fiih cilmigii oo la barto iyo isagoo la fahmo laba arrimood oo si kala dheer weeye waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay cilmiga yaqaanaan laakiin fahamkii uu ka maqan yahay fahamku waxa weeye inaad ogaato cilmigani inuu isagu ku hogaaminayo cilmigani inuu isagu ku ilaalinayo cilmigani inuu isagu yahay cibaado cilmigan in ilaahay lagu garto subxaanahu wa tacaala cilmigani inuu yahay nicma min nicam illaah oo lagu weydiin doono haddaad ku camal fali weyda qiyaamaha dadka kale aad ka cadaab badanayso marka waa inaad fahamtaa diintan inuu ilaahay ugu talagalay basharkan raggaa loogu talagalay oo dumarkaa loogu talagalay oo ilaahay addoomaha uma kala eexdo raggana uma eexdo dumarkana ma fogeeyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam liiska raggabaha ku jiro oo raggabaha ka mid ahaadee ragga iyo dumarka labaduba waa ummadiisii aabbaha u wada ahaa ee ku wada abtirsanayay diintiisa waa in qofka muslimadee dumarkaas diinteeda ay fahamsan tahay oo cid kale oo shisheeye ah hadal ay ku tidhi masale diinteeda waa inaanay ka shaki gelinayn asma binta abubakar ilaahay ka raali noqdo waxay dadkii hormuudka ahaa sida loo faa'iidaysanaya culumta diinta waxay u timi dumaashigeed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tas'alu can ghusli lmaxiid aw ilxayd waxay weydiinaysaa waa nebigu dee walaasheed buu qabaa waa dumaashigeed weeye haddana waxay su-aalaysaa sida caadada looga maydhanayo sideebaa looga maydhanayaa bay leedahay dhiiggan dumarku wakhtiga ay ka daahir noqonayaan
marka nabigu waxa uu ta'khudhu maa'aha wa sidraha dee saabuunteedii wixii ay isku nadiifinaysa ha qaadato ha is nadiifiso waa tii ku soo celcelinaysa lahayd kayf sideedee Aisha waa tii ka qabatay tiri ana intaa kugu filane iskaga kaalay bay ku lahayd nabiga maxay abateed u haysaa jecesha inay diinta si wanaagsan u fahantaabay jecesha oo wixii uu qofku garan waayo waa inuu su'aal ku keenaa iyadoo su'aashaasi ay hufan tahay iyadoo su'aashaasi ay u socoto mid ay qofkan cilmi ku faa'iideysanayso iyadoo su'aashaasi loo eegayo waqtigeeda munaasibka ah iyadoo su'aashaasi loo eegayo cidda diin ahaan qofkan si fiican u qarcin karta ee ammaanadan cilmiga ah aqoon u leh marka taasina waa mid qiimaheeda la weeye Sulaym gabadha la oran jiray Anas hooyadii Anas ibn Malik bay hooyo wahayd nabiga uu timi calayhi salaatu wasalaam su'aalo aad u adag oo dumarku ka xishoodaan ayay weydiinaysay gabadha iyo maydhashadeeda iyo sababta maydhiga ayaa ay nabiga wax ka sii weydiinaysay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu nabigu dumarka ku abaabulay u dardaarmaya waxa kamida annahyu عن الكذب على الأطفال waxa gacanta umada ugu haysan amaano weyn arrinkiina ha yaraysanina ha arkina in uu raggu idinka horeeyo oo yoolkiinu caynka noqon laakiin umada gundhigeedu waa ooriyaha waa guriyaha cidda mas'uulka ka ah ee ubadka gacanta ku haysa sida ogsoontihiin adduunyada dadku waa jiilan bacda jiil wa qarnan bacda qarnin waa qarni baa la isu daba socdaa halkan aynu ku noolahay dad baa joogo way ka tageen inaga imika joogna umad kale ina bedelaysa ubadka yaryar ee aynu gacanta ku hayno ee wiilal iyo gabdhaba leh waa aayaheeni waa cimrigeennii oo dheeraanayay waa mustaqbalkeena kuwa aynu higsanayna inay noo soo duceeyaan waa kuwaynu ka fikirayna bulshadeena inay diin iyo dad iyo dalba kor u qaadaan yaa gacanta ku haya idinka gacanta ku haya guriyihii bay idinla joogaan waa tarbiyadaynaysaan madaariskiiba u diraysaan aadaabtoodiiba eegaysaan marka arrinka aad gacanta ku haysaan wax weyn weeye wax sahlan maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam ammaanada isagoo hooyooyinka u xambaarinaya kuna abaabulaya waxa uu maalin maalmaha kamida la joogay asxaabtiisa gabadh kamida Abdullah ibn Amr baa wuxuu leeyahay waxa noo yimi nabiga umadiisu ka warhayo booqanayay hooyadayba markaa anigoo yar oo halka jooga waxay tiri ya Abdullah ta'ala u'tik Abdullah yow kaalay aan ku siiyay nabigu markaa wuxuu diidayaa gabadhan inay been sheegto maxaad siinaysaa buu timir tambayt hadii aanad sidaa oran lahayn been baa ilaahay ku qori lahaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka carruurta beenta laga ilaalinaya khiyaamada laga ilaalinaya kalsooni darrada laga ilaalinaya kalsooni darradu waa maxay waxaad ka ilaalinaysaa inuu macalinkiisa kula dhaqmo kalsooni darro inuu aabihii kula dhaqmo kalsooni darro inuu adiga kugula dhaqmo kalsooni darra intaba waad ka ilaalinaysaa markuu aabuhu amar siiyo ee uu aabba sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel wax wanaagsan uu sheego ee uu dhaqaaqo haddaad tidhaahdo been buu sheegayaa odaygu wuu silan yahay iska samee hooyo waxa uu sheegaya waxba kama jiraane kalsooni darraad ku abuurtay ilmaha wax laga yaabaa goordhow adigana waxba ka dhageysan maayo aabbana waxba ka dhageysan maayo waa inaad u sheegtaa tidhaahdaa sidaa aabba uu kuu sheegay weeye wax ceeba weeye waxaas hooyo iska daayo dib ha ugu noqonin marka rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaaranada uu dumarka siiyay aad bay u farabadan yihiin waxa ku baran karaysa walaalayaal in diintiina wax ka faa'iideysataan fursad baa maanta haysataan aanay haysanin walaalaheena ama Soomaalida joogta dabadda aanay haysanin baa haysataan imika halka ay isugu timaadeen si dhib yar baa ku timaadeen tareen maydaan soo raacin diyaaradna maydaan soo raacin saacadana maydaan soo socon wax laga yaabaa kuwa ugu fog inay bas yar soo raaceen oo xogaa kumayaal oo kooban 10 daqiiqo ama rubcna uu la soo socday kulanka inta la eeg baa isku heli karaysaan culimada inta la eeg baa heli karaysaan madaariskiiniba agtiina malcaamadihii baa ka faa'iideysan karaysaan quraanka kariimka jaaniska wala idin weydiin doonaa aanay haysanin walaalaha muslimaadka ee ku nool meelo kala duwan oo caalamka ah marka waxa u hawl gashaan si waqtigiina iyo adduunkiinaba ugu faa'iideysan lahaydeen diinta ugu faa'iideysan lahaydeen waxa idin heli doontaan marka adduun iyo aakhiraba wax tanidiina oo bulshadiinana ku badbaadisaan ubadkiinana ku badbaadisaan aakhirana aynu naar kaga badbaadna insha Allah ta'ala marka waxaan dhiirin lahaa aqoontiina kor u qaada tardaaranadan in yar oo kooban baynu ka soo qaadanay laakiin iyagoo aad u fara badan waxaad ka heli karaysaa quraanka kariimka
waxaad ka heli karaysaa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaad ka heli karaysaa kutubaha gaarka ah ee laga qoray axkaamta dumarka marka waxaan odhan lahaa shaydaanku si aanu idinku sheekaynin sharwadeenka iyo kufaartu si aanay idinka faa'iidaysanin yool badan baa haysta dumarka balaayooyin badan baa ku jahaysan waxa la ogyahay kaalinta ummadda islaamka ugu jiraan hadday dumarku bulshada ka xumaadaan bulshadaasi way kharibantay hadday bulshada u hagaagaan dumarku waxa ay noqonaysaa bulshadaasi mid aaya leh oo qiimo badan oo horumarta ilaahay baa waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkaba wixii aynu sheegnay inuu inagu anfaco inagana abaal mariyo oo inaga yeelo min alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب الله من قلبي الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي